guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Goorta talaajadaada aad furto oo aad ka soo saarto saxan cunto ah, sidee baad ku ogaan kartaa in cuntadaasi ay weli fiican tahay oo la cuni karo? Ma sheegi kartaa keliya adiga oo cuntada fiirinaya ama uriya? Sanad kasta, qoys kasta oo Amerikaan ah wuxuu daadiyaa in ka badan $10,000 cunto u dhiganta. Maxaa yeelay ma hubaan haddii cuntada ay fiican tahay oo la cuni karo iyo in kale. Inta badan cuntadu way fiican tahay, laakiin dadku waxay ku jahwareeraan taariikhda ku dheggan badeecada, kama dambays iibi, iyo kama dambays isticmaalka ugu fiican. Waa maxay micnaha taariikhahan? Ma kaa caawiyaan inaad go'aamiso cuntooyinka aad iibsanaysid iyo goorta cuntada aad tuurayso? Kama dambays iibi waxay dukaanka iibinaya u sheegaysaa inta sii saarnaanayso cuntada la iibinayo. Waa in aad iibsataa cunto aan weli gaarin taariikhda lagu soo dhejiyey, laakiin cuntooyinka badankood weli waa la cuni karaa xitaa marka la gaaro taariikhda ama kama dambays iibi la gaaro. Tusaale ahaan, haddii caano aad talaajada ku hayso, caanahaasi weli dhadhankiisu wuu fiican yahay xitaa 7 maalmood kadib taariikhda kama dambays iibi la dhaafo. Taariikhaha kama dambays ugu fiican, kama dambays isticmaal, ama ugu fiican kama dambays la isticmaalo. Taariikhda waxay ku saabsan tahay dhadhanka, u ekaanshaha iyo muuqaalka. Tani waxay ka dhigan tahay cuntada dhadhanka ugu fiican ama tayada haddii aad cunto ama cabto ka hor taariikhda ku qoran. Shirkadaha kuma qasbana inay ku qoraan taariikhda cuntada, oo ma jiro hal nidaam oo la oggol yahay ku qoridda taariikhda cuntada. Waxaa ugu wanaagsan in cuntada la soo iibsado intaan la gaarin taariikhda kama dambays ugu fiican, oo cuntada qabowga ahna geli talaajo qabowgeedu ka hooseeyo 40°F. Goorta cuntada qabowga aad u diiranto, bakteeriya ayaa si dhaqso ah ugu dhalan karta. Waxba ugama gelin taariikhda lagu soo qoray waxa ay dhahayso. Cuntada qabowga ah waa in la tuuraa haddii talaajada ay bannaanka taallay in ka badan 2 saacadood ama in ka badan 1 saac bannaanka ay taallay. Haddii cuntada halaabi karta sida hilibka qadada ama farmaajada aadan ku cunin 7 maalmood gudahooda, iska tuur si aad uga warhayso. Weelka dushiisa ku qor goorta aad furtay. Haddii cunto looga tago 7 maalmood wixii ka dambeeya, iska tuur. Sidoo kale, iska tuur cunto kasta oo si xun u uraysa ama caaro boor ah yeeshay. Waxba ugama jiraan taariikhda baakadda ku qoran. Cuntada qasaca ku jira waxay taali kartaa in ka badan 1 sano haddii aysan ku dhicin heerkul qabow ka hooseeya ama ka sarreeya 90°F. Laakiin marnaba ha cunin cunto qasac ku jirta oo buusantay, mirirtay, barartay, ama wixii ku qornaa ka maqan. Cuntooyinka badankood taariikhda ku qoran in ka badan ayaa la hayn karaa, oo weli waa u ammaan in la cuno. Soo iibso cuntooyinka ka hor intaan la gaarin taariikhda weelka ku qoran. Cuntooyinka qabowga ah markiiba guriga geey oo talaajada geli ama qaboojiyaha baraf geli. Goorta aad furto cuntada halaabi karta, weelka ku qor taariikhda.
kadibna cuntada iska daadi. Cuntada la dhaafo 7 maalmood kadib. Adiga oo raacaya tallaabooyinkan sahlan, waxaad qoyskaaga aad ka dhowraysaa inuu ku dhaco jirrooyinka halista ah ee cuntada ka dhasha. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.